biyahan waxaa dhaaminaya wasaaradda tamarta iyo biyaha dowladda federaalka Soomaaliya waxaana la gaarsiinayaa 30,000 oo qoys oo kamid ah dadkii ay daadadka wabiyada Daawo iyo Jubba ay saameeyeen kadib markii ay fatahaad sameeyeen maalmihii aynu soo dhaafnay dadkaan oo ku nool 2 goobood oo kamid ah degmada Doolow Soomaaliya qoyskii maalintii waxa uu helayaa 45 litir oo biyo muddo 30 maalmood ah ayayna biyahan soconayaan biyo dhaamintan ayaa wasaaradda tamarta iyo biyaha ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay bilowday 17 bishan May maamulka degmada Doolow Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay biyo dhaamintan loo sameeyo bulshada ku dhaqan degmada Doolow Soomaaliya Cabdifataah Ismaaciil waa xogayaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada Doolow Soomaaliya waxaana uu markaasi ka warbixinayaa qaabka biyo dhaaminta iminka ay u socoto halkaan waa Kabaaso biyo dhaamin degdeg ah baa dawladda ka sameynaysa muddo 30 maalin ah ee biyaha soconayaan waxna la gaarsiinayaa 30,000 oo qoys waxaan uga mahadcelinaynaa dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda khayraadka biyaha ee soo gaarsiisay deeqdan biyaha waxyaalo badan oo ka rajaynaynaa inay nooga imaadaan dawladda federaalka dadkii biyaha fatahaadda waxa ay saameysay biyihii ceelashii la cabi jiray sidaas darteed waxa yaraaday cabitaankii biyihii nadiifta ahaa biyo nadiif ah ay dawladana la soo gaartay waa uga mahadcelinaynaa waxaa kaamkaana jiray biyo dhanaan ah oo qaraara iyo wasaq isku jiraan oo wabiga ah ay cabayeen qaarna wabiga ay aadayeen waxaa aad u batay calool xanuunka iyo shubanka hadda waxaa yaraaday xaafadana hadda aan joogno Kabaasaka gaar ahaan xaafadda 10aad shubanka wuu jiraas laakiin wuu yaraaday biyo nadiif ayna cabahayaan sidaad u aragtiin waxaan rajaynaynaa inay biyahan sii socon doonaan oo dawladda markale si loo dibaari doonto sidoo kale qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan labada goobood ee markaasi biyo dhaaminta laga sameynayo ayaa u mahadceliyay wasaaradda tamarta iyo biyaha dowladda federaalka Soomaaliya waxayna markaasi ka codsadeen inay sii wado biyo dhaaminta inta markaasi laga helayo biyo nadiif ah markii hore biyo qaraar ayaan dhaansanayay dawladda federaalka biyaha ay nagu deeqday way soo gaareen way ku mahadsan yihiin 100% hadda caafimaadka caadi way biyaha caadi way biyo nadiif oo macaan baa hadda dhaansana Maxamed Macalin warbaahinta qaranka degmada Doolow Soomaaliya.